الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهدله ما أنت هو تاريخ تاي لحدي بشي كواد لبدا كونيشان إلى تنكا وهالشركدونكا يحل بانada golaha wakiilada hortagay qaybtii koowaad ee golaha wasiirada oo ka kooban 19 wasiir oo ka tirsan xukuumadda wadajir iyo waxqabad ee uu galwadeenka ka yahay madaxweynaha qaranka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ujeedada ay 19 wasiir u hortageen golaha wakiilada ayaa ahayd in goluhu uu ka guto waajibkooda la xiriira ansixinta xubnaha cusub ee golaha wasiirada sida ku cad dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan 19 wasiir ee maanta hortagay golaha wakiilada waxay golaha ka horjeediyeen hadallo kooban oo la xiriira arrimaha mudnaanta u leh horumarinta dadka iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiiradu waxay mid golaha wakiilada hortiisa ka sheegeen isla markaana ay ka xog warameen qorshayaasha u dejisan iyo arrimaha ay siinayaan mudnaanta la xiriira wasaaradaha uu madaxweynuhu eegmaday hadallada ay golaha ka horjeedeen 19 wasiir waxa ay ahaayeen kuwa salka ku haya waxqabadyada looga fadhiyo xukuumadda kuwaas oo la xiriira ama ku salaysan qorshaha horumarinta qaranka NDP3 iyo barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani iyo xukuumaddiisa wadajir iyo waxqabad dhammaan golaha wasiirada hortagay maanta golaha wakiiladu waxay mid golaha weynaha uga codsadeen in loo ansixiyo xilalka uu madaxweynuhu magacaabay ee wasiirnimo si ay u gutaan howlaha baaxadda leh ee uu madaxweynuhu u eegmaday intaas kadib gudoomiyaha golaha wakiiladu waxa uu goloweynaha ka codsaday in loo codeeyo mid loogu codeeyo 19 wasiir ee maanta golaha hor yimid taas oo uu goluhu cod aqlabiyada ku ansixiyay dhammaan 19 wasiir ee maanta hor yimid golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxa uu shirgudoonka iyo xubnaha xildhibaanada golaha wakiilada si mug iyo miisaan milgabale uga mahadnaqaya sida kalsoonida leh ee golaha wakiiladu u ansixiyeen wasiirada maanta hor yimid Allah mahadle